السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي سؤال هذا ولكن هارون يوسف ما أنت موضوع حكو سابسية محاكينا كعم جراسك لأن يربضنا وحارك الجيم كقاضي مركب بإنسان كعلوس قاضي إن قعمي جريان مركب محاكينا كعم جراسكاس محان القدا ويكرا موضوع ما أنت سوق سابسية حكا عصني هديتا مركب الرئيسي وجنالك يسوق وغنيسي سبسكرايب نو سارتي يرجل إنه قنيسة هذه حق في doonta cashar insha allah soo dhawaad mar kale maanta mowduuceena sida horeda ku soo sheegay wuxuu ku saabsan yahay maxaa keenay gacmo jireeska waxaa laga yaabaa dad badan inay arkeen dhalinyaro badan oo markay birta qaadayso inay gacmaha jarayaan adiga idaawana xataa laga yaabaa inaad isku aragtay gacmo jireeskaas marka maxaa sababo maxaase looga dawaabi karaa oo dawo saddex waxyaabood ugu waaweyn way jiraan sababo badan oo keen gacmo jireeskaas laakiin saddex waxyaabood ugu waaweyn markoo qofka inuu dhafarkiisa bato oo waqti dheer macnaha uu soo jeedo habeenkii midda labaad inuu qofka gacantiisa biyo iskaga keeno mid saddexaad oo ah inuu qofka energy yar uu soo isticmaalo intuu jiimka soo aadin ka hor oo inuu cunto soo isticmaalo saddexdaas oo waaweyn hadda ka hor midda koowaad oo ah dhafarka sida ogtiin ma dhalinyarada badanaa qof walba mustaqbal raadis ugu jira waxaa laga yaabaa qofka dhalinyarada inuu dhafar ku gaaro 8 saac 9 saac inuu waxaa laga yaabaa waqtigiisa ugu badan habeenkii uu soo jeedo subaxina isugiisa inuu jiim qaado marka jiimka iyo dhafarka maxaa farqi u dhexeeya macna qofka dhafarkiisa bato maxaa imaanaya jiimkana dhibaato ma u keenaya dhibaato weyn ku tahay qofka markuu dhafarkiisa bato waxaa imaanaya inuu miisaanka qofka uu culeyska uu qaadi waayo birtan iyo qofka ay qaboweyso qof waxa arkay hal sano jiimka wado wax isbedel aan dareemay qofkaas waxa laga yaabaa inuu dhafarkiisa badan yahay oo waqti badan uu soo jeedo habeenkii marka qof waxa laga yaabaa markii inay birta qaboweyso dhafarkiisa dartiis midda labaad oo ah qofka inuu gacantiisa iskaga keeno dhalinyarada badan oo reer kale heen laga yaabaa inay gacantooda biyo iskaga keenaan marka jiimka maxaa macna caqabad ay ku tahay in qof gacantiisa iskaga keeno caqabado badan oo arrintaas ay leedahay waxaa laga yaabaa waxaan rabaa inaan video gooni u sameeyo laakiin maanta mowduuceena soo gashay marka waxay keeni kartaa qofka inuu tabar darro oo said u dareemo inuu nagaraac said u dareemo inuu tamarta ku yaraato qofkii oo gacmiyo ka jarayo saddexdaas oo waaweyn insha allah video goonina ka soo sameeyo doona duu ilaa yarada mid saddexda u gudbo oo ah energy dhalinyaro badan waxa arkay ay ku baahan birta qaadayo ay ku baahan waxba soo cunin waxay rabaan inay miisaan culus qaadaan marka waxa imaanaya qofkii inuu gacmiyo ka jarayo oo tamar yeelo waayo sababta energy loogu talagalay jiimka ma soo isticmaaleen saddexdaas sabab ugu waaweyn qofka waxa la rabaa markuu jiimka soo aado inuu energy badan usoo isticmaalo si uu birtiinkaas iskaga daafaco awooddeedina uu yeesho hadda inta badan usoo isticmaali weysa jiimka intaad imaan ka hor birtaas aa qaaday miisaankaas blesska waxaa laga yaabaa inuu aad dhowdaada jib ku geysto sababtoo wax energy ma usoo isticmaalin marka dhalinyaro badan waxaa ugu digaa inay ayagoo baahan ee jiimka qaadin maalinta isdhaadid cuntadaada luuqi ku jirta cuntada kuma saxno maalintaas jiimka waa ka qaleynaya maalin kale ka dhiganay dhib la'aan muhiimadda ma hayna jiimka soo aadid muhiimadda waa laakiin inay cuntadaada ku saxantahay kuna dheelitiran tahay hadday ila socotay ilaa dhammaadka waxaa kaa codsanaya mar kale inaad janaalkiina soo booqatid subscribe noo soo saartid si ay dhiirigeli igu noqoto adigana aad talooyin badan uga faa'iidid waxaan jecelahay inaan mar walba kasoo hadlo mowduucii ay dhahdeen macallin mowduucaas kasoo hadal mar walbana idinka idin taaganahay sidii waxaa horumar uu gaari lahaydeen jiimka soo dhawaada asxaabtida qaaliga mar kale